واي كي هشام كمية ما يوا مالين إنه محا لاتين ما يعيس ما قرنا لكن لاتين heshiiyaan إنه waa heshiiyaan abbaay heshiiyaan waa ninka madowga إيش يا مية لاتين أمري heshiiyaan waa haa ninka dhanoo aad naga tirsan محا أو دنيا رضا ميعيس محوها سمتي أبدو محوها ميعيس سو غربا ميعيس ما حسوستين jiro oo mid heshaan waxaa jira aad looga sheeganayay oo imtixaan loo soo diray ummadda ah haa tida abdias kaas weeyaan soo maahan kaas waa tida abdias I think South oo ku American socday amo. baby girl haye South American amo. gabadha talooyinka siiya aanu dambe ma qaataa mise waa iska dambeeya haye ku soco gabadha la tali walaal wixii aad fikir ku dhaanta si maya niyo lafteeda dhiiqada ku jira talama hayna kowdhe dhiiqada waa lagu wada jiraa marka soomaali talama hayso waxa weeye ninkana dee hadda waddanka haystan waa nin iska cusuriya especially soomaalida dee annaga waxaana saaran focus baana saaran toosh baana saaran kiisaska lama dhegaysto master hearing lama maro totaliba qofka kiiskiisa waxaa la siinayaa deny marka dee wax annaga na haysto way waxaad mataqaanaa oo naga waaweyn waay ma fahanti marka ilaahay naga qabto ilaahay aan barin oo taas maan dhila aniga qodobkii u dambeeyay hadda ay ka hadlayseen soomaalida fundraising ha samaysto niyo soomaalidu waa qabiil soomaalidu qabiil bay ku dhisan tahay sida Etoobiyaanka kale ma nihin Kenyaanka kale ma nihin inaga waxaan u sii kala baxaynaa jilib iyo jifi iyo qabiil iyo reebel marka nin walba waxaan u maleynayaa reebel buu ka tirsan yahay oo insurance-ga la baxsada kuwan baa un lawyer ka bixin oo caawin baan maleynayaa qofkii dee Soomaali u soo baado dee familkiisii aan insurance bixin jirin ama familkiisii mataqaana meesha ay jooginna dee Soomaalidu u soo bandhigan waa la caawini ma fahanti laakiin midda xaqiiqada dhabta waxa weeye Soomaalidu haddaan nahay duwanahay uyadaha kale inagu waxaan u kala baxnaa maxaan ku dhahay maxaan ku dhahay aabbaha reerkiisa tagaysaa marka u dambaysa ma fahanti marka aniga waxaan dhihi lahaa aniga hadda waxaa wuxuu ahaa last week la ii soo diiday kiiskayga lama dhegeysan markaan tagay meesha isla markiiba waxaa la iska soconiyo Soomaaliya waa nabad Soomaaliya waa aadi kartaa ma garat waddan kale oo asagana dhexo aan ka imaaday baa jiray marka waxaa lagu dhahay waddankii aad ka imaatay ee dhexna waati waa lagu geyn karaa Soomaaliyana waa tegi kartaa maca salaam anuu kala gee kiiskayga maba la dhegeysaninba waxaan sheegay ma fahan maxkamadda Chicago bay ahayd nin la yidhaahdo Defo Greek nin la yidhaahdo ahaa ninkaas dad fara badan Soomaali badan oo kiisaskooda hadda hayaa nin Soomaalida yaqaanay kiisaskoodana ma aha waa nin ku cusban hadda Soomaalida kiisaskooda ninkana hadda u xil saaray sidoo kaleeto gobolka la yidhaahdo muxuu ahaa ii sheeg magaalada la yidhaahdo Colorado ayadana waxaa jirta gabadh madow oo wax fiican bixin jirtay oo ayadana Soomaalida hadda diidmo ku wada bilowday ilaa oo xataa ay dhibceeda hoos soo dhaceen hadda ay bixiso marka waxaan ilaaniyo ilaahay aska baran insha Allah taala wax ma jiro waddankan intaan ay manaka hore waa nooleyn haddana lacagteena ku imaanay waa soo tahriimnay ilaahay wuxuu noo qoray way min marka niyada khayr loo sheego hal la shaqeysto markii taada ay mataqaanaa nafta markay dhamaataan way baxaysaa ma garad hal isdijaan ilaa aniga aad baan islaam ya khayray waa kaa qaadnay axmedow hortaniyo nin dharay oo landheeraa tahay hadal fiicanna waa ku hadashay waxaan leeyahay gabadhaasaan rabaa inaan gabadha saaxiibteeda tala ka siiyo aniga aqoon-yahan ma ihi xirfadna uma lihi laakiin waxaan kuu sheegayaa oo keliya oo gabadha walaasha ama saaxiibtaa u sheegtaa ilaahay ha tawakasho dhinaayadka dad badan baa haysta abiil iska raadso waxaa laga yaabaa in waqtiga odagan markuu dhaca kadib maxkamad kale lagu soo geliyo marka iska dulqaad sameeya ilaahayna ka cabsada kartida iyo shala ku timid ee maantana ku joogaysaa bariiskeeda hadduu ka qorayaan way cuni doontaa axmed baan rabaa inaan hadalkiisii dabagalo wuxuu yidhi soomaalida maxaa dad maxay wax aruuriyaanba ayagiibaaba soomaalidaniyo hadda meeshaan joogta intooda ugu badan oo dad wanaagsan oo ahludiina oo ahlu khayra jiro oo afkooda laga nabad helaayo in yaroo waxaa jirta sharciya haysata oo isku haysta inay yihiin Mareykan citizen inay yihiin oo raba inay dadka dhibaateeyaan waxaa kaliya arkaysa waa waddanka kaliya dadkoodii Mareykanka ay joogaan ay dadkii kale oo walaalahooda soo tahriibay ku dhahaya aysan ku gacan gelinaynaa waa qowmiyadda kaliya laga hayo kuwa kale ma ka maqlaysid Ethiopian kama maqlaysid Heshiiyaanka wax saas kama maqlaysid Soomaalida
qof dhan oo sharci haysto meesha lagu qoray inta soo istaago wuxuu ku leeyahay aysan kugu dhiibay marka dadka sidaas kaga dhibaataysan baan la joognaa xaniyihii iyo kartida aan ku nimidna waan la joognaa dadka ilaahay ha tawakkal saartaan axmed walaal ilaahay khayr bedel khayr qaba allah kugu bedelo waxaan rajeynayaa in duu dee bariiskaada ka qoran yahay meeshaan waad sii cuni doontaa dee hadduu ka dhammaadana dee calafkii baa dhammaaday shalana karti baa ku timid maantana kartidiina waa leedahay haddii meel kasta lagu geeyo waad ku noolaanaysaa marka dadkan dhalinyarada niyadooda khayr ha u sheegaan hana la isdejiyo waa iska socotaa waxa waa iska sharci daro waana la boogsiinayaa ninkii farta ku dhacdona ilaahay subxaana watacaala bedel khayr qaba ha weydiis waana ka bar ninka la yidhaahdo soomaali boy waxay raadahada ninkaasaa raba hal su-aal inaa u jawaaba niyow hadda waagii dhaweydii ayskay bilowdeen anigu waxaan joogaa minneapolis moolka ugu weyn ee soomaalida ugu weyn waa karamayl waa taqaanaan dhammaantiin hal qof oo soo xaadiraa la waayay niyo marka maxay ii faantamaan aniga nin asagiiba fiiri markay problem imaato aan isdifaaci karin oo maskiin ah oo qaxootinimo shalay lagu keenay muxuu aniga marka ii bootayn karaa marka moolka wax soo gala la waayo anigii cararaya dhuumanaya iyo ayagii sharciga haystay isku mid baan noqonay soomaali lama taqaana la waarsanayo oo xataa citizenki baa la isku jebinaya ma fahanti markii qof sharci haysta oo shalay qaxootinimo lagu keenay haddii inuu kuu faantama ma baha ma fahanti meesha faan ma yaal arrintaas dad walaalaan nahay ka gudbahay ka soco soomaali mayo waxaan ka hadlaya keliya macnaha inay dhibaato hadday imaato oo soomaali ku imaato inay soomaali tahay maan ka hadlaya aniga ma fahanti علي وانا لا اريه لا فايزرسك انا احمد علان علكي naga daaya calaan calku ma wanaagsano waana loo inaguna maanta isku mid baan nahay waanu shaqaysanaa way shaqaystaan gaariyal baan waan wadanaa kor uga dhaca kii taha aysan ku ganiyo kii kalena isaga u taala mid laga sameeyo ala message aan soo noqono sarbayo idris oo saaxib su'aal baan qabaa idris baan rabaa inaan su'aal weydiiyo nimayo faa'iido noole niyaan idrisow sida wiilkii hadda ka dhawaajiyey inkastoo inagu soo gaadhin wadankaaga ku noqo niyahun interviewgii hadda waxaa bilaabantay ani horta waxaa igu jira nin la dhaho Tyler Philip Church la dhaho oo dadka ka tuuray laakiin magaaladii Minneapolis ahayd subaxiiba waxaa maraysa 20 adig rag iyo dumar lama kala fiirinayo meesha waa tagaysaa 5 daqiiqo marka lagula taagnaa waxa lagu wadankaaga amni bay noqotay dan arrinkii niyo waa la baaray kiisaskan la leeyahay wadanka waliba waxa loo soo dirayaa page intaasoo waraaqadood oo page oo la leeyahay sanadka maxay Arsenal waxa tuqaysay Mareykanka maxay waxa tuqaysay maxay baa tuqeeyay dawladda Soomaaliya halka kula dagaalantay wadankaaga nabad weeyaan wad ku noqon kartaa dan adiga looyarada dib isku noqday waxa la ogaaday Arsenal dadka ay u qorantay case-ka Arsenal ah in arrinka la leeyahay dadka nabad weyn wadankaaga ku noqo marka dawladda Soomaaliya intiiso ma meel waxa jirta dawladda Mareykanka ay ku tiri wadankii nabad buu noqday iyagu waxay leeyihiin marka dawladdiina tiri bay dhahan dawladdiina tiri wiil waxa loo soo qoray lagu dhahay dawladdiina Soomaaliya tiri wadanku amni buu noqday arrinka meel ma ku aragtay maya waa jirtaa idrisow anaa daawaday golaha ammaanka qaramada midoobay madaxweyne xasan sheekh oo ka khudbeeyay wuxuu yiri wadanka ammaan waa macnaha ammaan oo progresska iyo wixii progress oo iyaga ay qabteen may ka hadlaayeen mise ammaan oo dadkan hadda nabadgelyo wadankeena ammaan waaye Soomaaliya ammaan waa way soo hagaagtay yar waxaa jira saaxiibkay oo Virginia maxkamad ku maraayay kiiskiisu meel fiican u maraayay markii ugu dambeysay looyarka dawladda wuxuu keenay khudbadda madaxweynaha wuxuu u shiday judge-kii marka waxa lagu yiri wax ka xunnahay wadanka ammaan waaye madaxweynaha hadaan dhahay marka waana xataa safaaradda Mareykanka Soomaaliya waxay tiri waxaan kala shaqaynaynaa dawladda Trump sidii Soomaalida ay celinayaan aan ugu fududayn lahayn hadda ka hor arrintaas safaaradda way kala shaqaynaysaa ma fahanti marka waxay isla ogyihiin waa dawladdiiyo safaaraddu lacag bay rabtaa waxayna rabaa inay xoogaa dhanaansi ka helaan arrinka kale oo ah in Soomaaliya waa ammaan oo dhalinyarada loo codsanayna waa khudbadii madaxweynaha uu ka jeediyay golaha ammaanka qaramada midoobay oo waliba ugu faanay uu yiri waan ka saarnaa ururka argagixisada sidoo kale wuxuu ku faanay in dhaqaalihii dib loo soo celinayo shidaalkii rabay inay qotaan marka waxyaalo badan oo dul istaagay marka qodobkaas loo codsaday
اوكي انا ما ربا marka meelkan aniga soo hal hadaya وانا سيريا باي هل دقيقة مeel kale waxaan rabaa inaan naga tuso haddaa waqti heshaan waxaa samaysaan Trump markuu campaignka ku jiray sanadka ugu dambeeyay uu campaignka tartamayay arrimahan hadda Soomaalida ku saabsan iyo immigration kaani waxaan kama hadlayn wuxuu ka hadlayay kaliya mass deportation aan sameeynaa dadka criminalska ah Obama wuxuu report gareeyay 3 milyan oo qof mataqaanaa uu wadanka ka tarxiilay laakiin 92% waxay ahaayeen dad dambiyo waaweyn galay bay ahaayeen marka Trump ilaa hadda markaa ma gaarin laakiin wuxuu yiri mass deportation aan sameeynaa saasoo election ku galay criminals marka laakiin oga dhigay saldhig waxaan rabaa marka inaan igu challenge gareeyo sheekadan inay shaqo ku lahayn dawladda Soomaaliya iyo arrimaha inay shaqo ku lahayn tusaya in my opinion aniga fikirkayga wala safaarad Soomaaliya waxaas inay cidna wax ka weydiinin xataa aan la kala jecleen madaxweynaha wadanka wuxuu ku hayaa Soomaaliya dawlad ma laha booliis ma laha amaan ma aha waa garbage asaga ma taqaanaa afkiisa ka qareeyaba marka laakiin hadda fiirisaan Google garay ama ChatGPT ku qora project 2025-2026 summarize kiisa meelaha Soomaalida lagu sheegay iyo immigrantiga lagu sheegay ka fiiriya project 2025 waxa qoray Stephen Miller inay dhahaan waxay ninkaas isla shaqeeyaan nin la yiraahdo Mark Kirkland oo asagana ahaa organizationka Minnesota ka shaqeeya CIS la yiraahdo oo nambaradan soo saaray Soomaaliya intaas ceeray qaata intaas sectionada ku nooshahay intaas English kuma hadasho ninka nambaradan soo saaray waa nin cunsuriya Mark Kirkland iyo waa nin Yahuudi ah oo Eastern Europe ka imaaday waaye iyo ninkan Stephen Miller asagana Eastern Europe ka imaaday Yahuudi kala project 2025 waxa ku qoran immigrantiga sida wadanka looga sifeen lahaa saldhig waxa uu ahaa maadaama nimankan ay Yahuudi yihiin wadanka in destruction yani wadanka xaalad adag wuxuu ku jiray in dadka cadaanka asalka ah ay soo dhaceen Yahuudi inay soo dhaceen oo dagaal culus Yahuudi la galay xilliga campaign-ka way jirtay haddana way jirtaa marka project 2025 number 1 mass deportation ka immigrantiga lagu sameeyay way ku qoran tahay in attention-ka iyo mataqaanaa media laga jeediyo Yahuudana way ku qoran tahay oo si dadban ay ugu qoran tahay laakiin qaybta immigrantiga kaga aadan hadda fiirisaan waxa ku qoran immigrantiga wadankan imaaday oo ay kow ka tahay Soomaalida ay ku qoran yihiin Heshiyaanka ku qoran waxa ku qoran Honduraska Nepaliska Venezuela wadamada hadda la target gareeyo dhinaca magacyadooda ku qoran ay leeyihiin dadkan wadanka imaadeen Biden baa wuxuu soo daayay 4 sano la soo daayay mataqaanaa intaas oo milyan qof wadanka ku soo daayay qaarna sharciyo siiyay qaarna hadda mataqaanaa process ka marayaan marka waa inaan completely wadankeena aan ka sifeynaa dadkan saldhig uu ahaa campaign-kiisa iyo project 2025 u ahaa marka anigu waxa aaminsanahay dawladda Soomaaliya hadday tiraa wadankeena waa nabad iyo hadday tiraa wadankeena nabad ma aha cid wax ka dhageysanaysa cid wax ka qoraysay ma laha laga yaabo judge-ka dhahayo saas arinta dhahayo in la soo siiyo tip oo la dhahayo prosecutor-ka kale wuxuu sameeyaa research uu sameeyaa soo mataqaana case-kiisa judge-ka uga raanaciyo wuxuu leeyahay hey judge listen article-kan fiiri linkigan United Nations ka soo baxay fiiri madaxweynaha Soomaaliya dhahayo wadanka waa nabad yaa waxa soo isticmaali karaan laakiin waxaan way ka weynta arintaas waxaan waxa weeye arin sal ku haysa project 2025 oo nimankaas ay qoreen oo lagu sifeenay immigration-ka iyo mataqaanaa iyo mass deportation-ka dad citizen ah ayaa la xirayay oo la soo daanayay dad citizen ah si qaldan mataqaanaa lagu tarxiilay iyaga cadaankan hadda markay hadlayaan cunsuriyiinta ah oo Trump la safar markay hadlayaan waxay wadan ka dhigaan laba group bas labada group waxa weeye either inaa white tahay oo American ah tahay American ay kugu yeerayaan haddii aan 9 white tahayna American ma tihin that's what they believe and that's what they mataqaanaa saldhig uga dhigayaan marka kuwii ku dhashay halkan ay aaminsan xataa inay mataqaanaa American ahayn marka waxba macna badan ma sameynayso inaan anaga aan Soomaaliya ku riixno America kale ku riix macna badan ma sameynayso laakiin halkaas salka ku haysa kulli aniga sidaan u arko raali hada ku socda okay idris waa fikirka taas aad baan soo dhaweynaa ma garat waxaan rabaa hal su'aal ay go ahead ay ku socda Well, I couldn't say it's not fikr, wuxuu ka hadlay it's facts. It's actually what's going on, but go ahead. maxay horta waxaa jirto waxyaalaha oo okay wiilkii hore systemkii ko waxaan rabay inaan ka hadlo wiilkii dhahay khudbada run waaye Idrisow waxa jiro waxa markii sharciga lagu diidayo waxyaalo la dul istaagaya jiro example
warqadaha marka wadankaaga nabad waayo madaxweynahaaga sheegay khudbadaas waa lagu isticmaalayaa khudbadana way jirtaa wajisturu maxay ahayd mid kaloo jirtana waxay tahay dad waxaa jiro marriage qorteen oo marriagekii ka saareen haddana oo dhimasho waalidkooda qorteen oo certificate dhimasho soo sameeyeen after 2010 kadib dowladda Soomaaliya noqotay in warqado documenter laga helo because before 2010 1991 up 2010 government documentation ma qabin anaka okay for example waalidkaaga wuxuu dhintay 99 oo dhintay or wife-kaaga 99 dhimatay cadeen baa laga rabaa cadeen baa soo sameysay isbitaalkii cadeynta ka soo sameysay directorka waqtigii la saaray ee dowladda Ameerika xataa haysaa khaldaadka badan oo la sameeyo dhalinyarta sameeyso waa khaldaadkaas maxay prosecutor wax kasta uu og yahay judge-ka wax kasta uu og yahay immigration-ka wax kasta way og yihiin ma fahmino midda kale oo they know everything wax kasta way og yihiin wax ka qarsan ma midda kalena waxa waaye Idris oo dhahayay aan rabay inaan ka hadlo run waaye immigrant-iga ay rabaan wadanka inay ka yareeyaan waa project ay qorteen waaye documentary ay qorteen waaye seen ku yareynaa only cadaan in la siiyo sharci only cadaan leh inuu wadanka ku hari doono dadka madowga xataa wadanka ku dhashay xataa xuquuqdoodii waxay bilaabeen civil right wax la dhaho oo discrimination shaqooyinka qaar yaa apply gareysan karo only cadaan boy cadaan leh apply gareysan karo qof cadaan leh shaqo heli karo qof cadaan leh wax kasta la sii karo projectigaas ku hoos jiro iska daay ani sharci la siiyo iyo waxaas iska daay shaqooyinka hadda la iskugu soo dhacooyaa in dadka shaqooyinka loo diido marka intaas aan uga baxay ma santahay haye ku socod live shot Idris waa maasanta brother Idris niyo waxaan rabay su'aal muhiim ah inaan ku weydiiyo oo ay tahay qolkan waa qolka kaliya ummadda lagu caawiyo gaalaha meel baylooda ku dhex jira daqiiqada maqashiin marka niyahow ummadda meesha kaliya lagu caawinayo inay halkan tahay mar walbana waa la isweydiiyaa oo xagga dhaqaalaha ku saabsan taasna niyo weli ma arag meel wax looga qabanayo laakiin waxaan aaminsanahay in qolkan haddii wax looga qaban waayo meel kale wax looga qaban karo inaysan jirin ma garad marka niyo arrintaas ani waxaan fikirka aan qabo waxay tahay arrintaas hadda adi u kaba gashanin ama GoFund inta aad soo saarin cid kale oo mas'uuliyad ka saaraysa horta ma jirto ma garad marka niyo dhalinyartan ama ha loo wada kaco midkooda xataa roono wax haysto waxaa jiraan kuwa qaarkood waxba haysanin waxba iska kaafagaran karin marka sifay ayaga ay si qaas ah kula soo xiriiraan waayo hadda waxaa jiraan niman company ka shaqeeyaan la dhaho Landstar inaad maqasho uma leeyahay hindi waayo aniga nadartu bilcaan waxaan dhahay 20 nin oo igu dhacday anaga lacag almost 70000 aan taalo waxaan u aruuriyeen kulley banjaabkooda madaxda ma garas marka niyo arrintaas hadda adiga aad meesha hawsha ka bilaabanaysa waa halkan waxaan jeclaan lahaa niyo inta dhimanna inaad dhamaystirto kulley hadda halkaas soo saarto adiga aad dusha iska saartana waa cid kale oo maanta maamul karta ma cid kale loo dhiibi karana ma jiraan intaasaan oran lahaa brother waa tala fiican waa u tala badsanayna insha Allah waana mahadsantahay sultaan haye Idriso waa sheekada dadka gadaal ka yimiday waa maxay live shot waa dhalinyaro dhibaataysan baa jirta ha okay good waa in dadka update garay waa muhiim weeye waxa laga hadlayay walaalaha wiilka bila wuxuu soo bandhigay hadda dad badan waxay qaateen diidmay qaateen marka appealka inay xareystaan kharashkay ku xareysan lahayn xataa ma haystaan marka caseskood inuu challenge leeyahay kale marka waxaan istusnay balniyo haddii saas tahayba dee waddanka waa ku badanahay 1000 qof ama 2000 oo qof oo donation bixisaa ku filanay ma la caawin karaa taasaan ka hadlaynay may way wanaagsan tahay arrinkaas daf weliba saa'id iminka bilahan u dambeysay dhalinyaro badan xataa kuwa waxaa jira la dhahay ambilka intuu ka dhacay maaragtay
loo soo geliyey ay tarxiil loo soo geliyey baa jira moogta inkee balmud kale walaal dee idriso walaal markan sida uu life sharta uu ka hadlayo kolley lama aha qol kale iyo meel kale oo horta arrinta dhalinyarada cusub iyo darbigaba looga hadla qolkaagaa jira waa marka run la isku sheegayo meel kale oo lagu soo hadal qaado oo wax lagu aamini karo ama dad isku keeni karo ama dadka intaa laga u iman karaanoo warbixin laga heli karo ma jirto marka idrisow adigu dad la kaashatayaa dhalinyarada intanan meeshada joogno ee dhalinyarada la kaashatayaa hawshan kashayaa goofanda furtayaa arrinkan idrisow anagu garabkaaga waan nahay laakiin dee qolka kama maarsamay saaxiibaano fikirkaasan qabaa hal su-aal raba inaan ina weydiiyo ininka raali ah haddii gabarta marka walaa ee saaxiibtay waxaa work permitka uu ka dhacay way dalbatay laakiin weli wuu ka maqan yahay looyarkuna wuxuu dhahay haddaa abiil qabsat iskana teg 2-3 years 2-3 sano ama 2 sano ee qaadane marka su-aasheeda waxa waaye work permitka may usoo dirayaan haddii abiil ay qabsato ha anisan idrisna uu ku jawaabay معناها بروسيس كوساس سوما سلطان waxaa jira aniga wiil aan saaxiib nahay baa jira oo 2025kii May dhammaadkeedii uu siiyay nin la dhahayay judge la dhihi jiray Montemiller Gay oo hadda Minneapolis ka ahaa judge laakiin judgeadii caadiga ahayd inkastoo nin xun ahaa ninka ugu xun uu ahaa laakiin raggan hadda dhaama oo imika kuwan ma shaqeynta hadda kuwan computerka ee Texas jooga baa shaqeeya laakiin markii hore magaalada Minneapolis waxa ka shaqeyn jiray judge magacyadooda la yaqaan marka nin geel la dhahaa Montemiller kaasa aad u xuma Soomaalidan aad ugu xuma wiil baa uu siiyay tidmo wiilka wuxuu ahaa dhalinyaradii 2 sano warqadda shaqada 2 sano haysan jiray dadkii dambe ee 2023 iyo 4 dadkii 2024 ka yimid 5 sano looga dhigay laakiin dadkii 2022 ga yimid inta badan waxay naga dhacaysay April May June July bay naga dhacaysay oo macnaha dee labadii sano baa naga dhacayay maadaama xilliyada uu ahaa wiilka isagoo ay warqadiisa shaqada ka dhimantay 6 bilood ayaa waxa wiilka la siiyay negative then ambil buu qaatay ambilkii uu xareysan warqadii shaqada ka dhacday warqadii shaqada ayuu xareystay 5 sano oo soo dhacday warqad ilaa hadna ambilkii iskaga jooga wiilka ana indhahayga sare wiil ana saaxiib nahay mar sax isku waxna jeclahay thank you idris ma ayaa hadlay idris ma maqlo waa garan lahaa ayaa hadlayana yaa waa kuda jiraan ayaa hadlaya dadkii muday kuda jiraan kinga majumba hadlaya waxa waa maxay yaa laga hadlaya inta sheega والله وانا لهلا ماشي محا قلدر انا مقعاش فيريه wax alla xataa waa waa bala wala shay dawr joor jalan waxaan u maleeyaa ama codka hore laba dhacayniyo waxba jiraan oo riyaa ilaahay yaqaan bal ku socdo idrisow haye ku socdo ku jirta bal ku socota hadda caadintaa idrisow ana hadlay waxaan ka jawaabay sultaan ninka la yiraahdo ninka saaxiibkiisa uu ka sheekeeyo nin cagsi ku ah oo ka soo horjeeda nintaas oo kale la diiday oo waxaa jiray lawyer-kiisa oo u xareeyay bahalka la yiraahdo inta sheeg ambiilka marka lawyer-ku wuxuu dhihi jiray ambiilkeena waa la aqbalay process baa noo socda shaqadiisii iska watay Uber buu ku shaqayn jiray maalintii dambe oo warqadii shaqaduna soo dhici weeyay bahalka la yiraahdo nimankan operationkii December bilaabmay
ugu cararay ma garan marka waa sidii ilaahay uga soo qaado warqadda shaqada wax garantiya ma aha intaasaan rabay inaan ku darsado asadow warqadda shaqada 2025 August wixii ka dambeeyay dadkii xareeyay inta badan way ka wada raagtay ma ogtahay hatta aniga kula hadlaya May 2020 waxay ka dhacday 5 aniga hadda kula hadlaya Sultaana waa May bay ka dhacday laakiin waxaan ku jiray dadkii aan haystay extended ka haystay warqadii extended ka lagu caadi lagu ogolaa inaad ka shaqaysato ma ogtahay May markay dhacday August ay soo baxday iyadoo magacyadeedu ay khaldan yihiin oo laba xaraf ayaa istaba marsana meel ay ahayd ii laga dhigay meel ii ahaydna ay baa laga dhigay adu waxba istaba maray magacii baan replacement wax la dhaan ku sameeyay replacementiga aan ku sameeyay ilaa aalaanka aan kula hadlayo ma jirto laakiin extended kii waan iskaga shaqaysanayo warqadda noosha marka dadkii August ka dambeeyay ay ka dhacday waxa way ka raagaysaa biyo ninkaan ku sheegayo Sultaano ninkaan ku sheegayo adigu May iyo August meelahan aan ka sheekeynaysaa wuxuu xareeyay bishii labaad oo 2024 buu xareeyay صح اوكي مين كسوالين lagu dhagay 25 na markii ugu dambeysay oo macaa stationkii ka dhamaaday oo operation halkan ka bilaabmay uu ka cararay marka waxaan qofka gacanta kiiska ku haya ilaahay hadduu dib kuugu dhufto waa lagu siinaya waxa isku xiran ma jiraan wax isku xiran ma jiraan aniga kula hadlay tii hore markay iga dhacday 6 bilood bay iga maqnayd السلام عليكم أباي أيان قفة information isosiye aan kuu sheegaya abiilka markay qaadanayso qofka ku darsadaa la dhahay gabar baa wixii hadda ii sheegtay luuqa igu soo sheegtay aan la hadlay waxaa ku darsanaysaa sababta abiilka u qaadanaysid number 2 maba lay dhageysanin keiskeyga lama maqlin maba i dhageysanin waxaan qabo dhibaatadan qabo cadeemadeeda magacayga ay weydiisay da'deyda ay weydiisay meeshaan ku dhashay ay weydiistay iska fariisa ay dhahday diidma isiisa xuquuq af Soomaali mar af English baro ina ku sheego bini'aadanimada kuma jirto mana ii diidi kartin bini'aadanimadan kuma jirto ereyga intaa yarka looyarada ugu darto marka kiisaska intaas ku jiraan oo looyaradeeda la sheergaraysa qoftan marka kiisaska intaa ku jiro lawyer kasta way kala experience badan yihiin moogtahay marka kiiska intaas oo lagu darsado aad buu u caawinayaa marka just qof hoos fadhiya ii soo sheegay marka intaasaan ku soo gudbinay thank you so much idrisow niyahon waxaad u sheegtaa dhalinyaro badan oo hadda waxa jira negative la siiyay magaalada inkastoo Mareykanka oo dhan ay Soomaali ka siman yihiin laakiin meesha ugu badan balaayadu ka taagan tahay waa Minnesota gobolka Minnesota every day waagi bariyaba waagu samarku bariyaba 5 qof oo Soomaali horta waa la hubaa 5 waa la hubaa inta la dadku isma wada yaqaanin dhalinyaradu laakiin marka si guud loo fiiriyo ma waag kasta oo bariya 5 qof oo wiil oo waliba wiilasha u badan horta diidmo way soo qaataan waxna waa waxde maaragtay maxay aad ogtahay lagama boqo mahmaadii dhigi jirtay maxay ahayd nabarku ku yaala maxay naxdin malaha weeyaan waa la iska wada sugayaa moogtay nabarku ku yaala naxdin malaha horta waxani waa rag la soo qorsheeyay la soo buuxiyay arrinkan qaar kuma dhageysanayaan hadduu ku dhageystana qof ujeeda kaalihi wuxuu kugu sameeyo 2 saacadood xataa hadduu ku siiyo oo maanta dhan balaayo iyo masiibo iyo hoogiiba kugu dhacayo ku qorna aad ka sheekaysid xagga ugu dambaysa waxa weeyaan meel laga soo maro lama waayo moogtay hal meel baa laga soo maraa meeshaas mid lagu dhaho waxa ku qabanaya wixii la dhahay maxay ahayd wixii Biden uu sameeyay dadkii ka dambeeyay 2023 May article 8 miyo ahaa title 8 qof loogu marmarsiyoodo qof la dhaho title 8 loogu marmarsiyoodo haddii title 8 aad ka baxdid waxaa ku hor taala oo hadda bilaabeen inay ku weydiiyaan body passkii aad ku soo baxday Latin America waa body passkii aad ku timiday maha passportkii
وبري وإمك دليرة بدن أو واحد يطلعوا ده بري بس كأوي قف سافر سنة أما 6 سنة يبر كهر برازيل صامري أو بري بس كوي متي أو ما عرفتي شنكل كي أنت لا كاي لبض بقول وبي سوق نسود حكوي إسكدا بري بس إن هل شنكل كهل سلوالي كما كرات هتقول أدي لك صوب بحاب الحمد لله أو بنا ملوك صقل الموت تدو حلو ويدينا يا إن بري بس كي أتكسر على ديارة لاتين أمريكا كتمتي واحد فانسيين إن قف كان مركو أفريقيا كسو دولي وقسم لاتين أمريكا وطن كم هذا من أما الصوت أما النور أما برازيل أما عن نيكاراغوا الصوت كلا ده صوت أمريكا ده أهموت دين واحد بالعبان قف كي مركا انترفيو جيس في عن لود جيس وحل إسكالي هاي ما الله مر لوايو بوري بس كي كان بوري بس ما قفوا هيا مركا تلاقي ما هينا ساسوبا متقناي بديد ملقوسي كسو قدب هدي بوري بس كاس لعل aad keentid oo tiraahdo waatan maaragtay kaba soo qaad waabad keentayba ama laguma weydiinin waxa lagu leeyahay ujeeda lagu raadinayaa niyahow Soomaalinimadaada aniga waxaan aqaan door wiil oo lagu dhahay inaad Soomaali tahay maxaan kugu cadeeyaa markuu dhahay baasaboorkayga waa kan dhalashadeedii waa kan waxa lagu dhahay wiil kamid ah dhalinyarada waxa lagu dhahay Soomaalida maxaan ku cadeeyaa nin wuxuu ahaa interview u fadhiyo moogta سلطان كويل waxa maqlay umulisadii waxa ka lagu yiri ha marka waxa dhacay tirso wiilkii wuxuu dhahay Soomaalinimadeedu waa kan baasaboorkaygii buu dhahay dhalashadeedu waa tan luqadan aan ku hadlayaa dhiigkaygii baa la arkaa adiga everything markuu sheegay nin waxay ahayd معناها دقنا وها وحو كدهاي gabadhan ku turjumaysaa oo Soomaaliya Soomaha iyada weydiiba ku dhahay iyadii baa la weydiiyay iyada waxa tiri ninkani luqadiisa soo hadlayo iyo alaabta uu keenay waa qof Soomaali origin oo macnahan Soomaali dhalad ah ninkii lawyer-kii dawladda wuxuu iska soo jiray maaragtay ninkii dawladda ka socday la dhahaa dawladda ka socday lawyer-ku wuxuu iska soo jaray ninkani hadduu Soomaali yahay baasaboorkii uu ku soo dhoofay ee wadankan uu ku yimiday waayo inagu baasaboor Soomaaligan aan samaysanayno fiisa ma saarno sax in baasaboorka halka baad ka samaysatay waxa marka arrinkii waxa lagu dhahay niyahoon arrimahaas oo dhan baa hadda soo baxay oo arrimahaas oo dhan baa iswada dul saaran aan idiriso xaaladdu way qaraadhay moogta السلام عليكم ambiil aan waxaan qabaa ayar ugu daro niyahoon waan kugu daray idris waxa dhalinyarada ugu dartaa niyoon dhalinyarada looyarku hadduu looyarkaagu hadda marka negative lagu siiyo looyaro waxaa jira lacag uun qiimeeya oo ay ka mid tahay taa Afrikaanada iyo qaar la sheegayo marka negative saa lagu sii ku dhahaya si G28 cusub iigu saxid waa inaad lacag intaas bixisaa dhalinyarada waxaan dhihi lahaa war looyarka mar haddii negative aad kala qaadateen oo kala dhamaateen haddii aad ku qanacsanayn ilaahay baa arsaaqada bixiya wal caafimaad qabtaa taasi waa shaqaysataa lawyer kale oo magaalada hal bil 30 cishaad haysataa lawyer kale oo ku qanacsan tahay raaso in ambilka lawyer kasta ku xalayn kala lawyer kale G28 wad saxiix lawyer kale iska qabso marka aad baad idin salaamay waa tahay ninka odaga ah balsiya asaga racbal buu joogay galgal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله إدريس يا خيرت وين والسلام يا دمانتين من مغلي سنرتا سيفي عن نيو كل يوم مغلي يا يركز لكن الجروب مي هي أنا قاعد كلا كانت 2023 جيبان هاي مركا جمعان هذا أنا صوت عفيفي appointment host يسوق لي ولينو يسوي عن هيه مركا ده وقت اللوير اللي قاعد لما هايو وحب لما هايو مركا ما إيمان مسمي إيمان بس على ده واحد اللي مويدين ما هيستان كوري لوير يترجمان منه ما هيستان كوري ومبهرين هذه كنا إموبال ده هذه وقتك سوق شنا أيها إكانك وأنا استعينا أنت فوق هذه وقحوتني ما كنت منها ها أيها إكانك سو أفريقيا إكانك dad يعني dad xabad ku dhacdo oo la soo qaaday 2023 kan kamid ah
2023 ga lagu keenay qaxootinimo lagu keenay South Africa laga soo qaaday haddana waxa lagu wacay waa barnaamijka interviewga ee Operation Paris Soomaa yes goorma balan lagu dhigay codkaaga waxa kugu furan qayli badan baa kugu furanay balantaada goorma waa Monday walaalo Monday 9 morning Monday goorma balanta lagu soo adi kaliya only adiga bas imo way ku dhaheen lawyer ma haysta markaan ku yiri iska daabay dheen lawyer adigu noo imo turjubaana annaka haysana iska imo adigu green card ma xareeyay goorma ku soo green card ka 2 year iga xareysnay 2 sano amal ku dhawaad iga xareysnay goorma ku soo sheegay balanta qaabkeena kugu soo sheegay warqad laba warqadood la soo diray mid kaniisadan ka xareysta lagu soo diray midna gurigayga lagu soo diray kadibna galabtii bay soo shalay galabnimo ay soo waceen yaa ku soo wacayana ayaga soo wacay naag meeshaan ka shaqeeya lahaydoo xafiiska lagaaga wacay baan ka shaqeeyaa tiriba appointment baan kuu qabanay hanaga beeldarayn haddaadan imaanaynin dad baan haysanaa aanu kugu bedelayna caddee bay igu dheheen hadalka waan imaan baan ku yidhi marka anna ma hay'adii baa ku soo wacaysa mase immigrationka ku soo wacay immigrationka waay immigration hay'ad ma ku jirto meesha waayahay niyahow arrintaa waa arrin nagu cusub weeyaan bal xoogaa mudgal waxaan kula talinay horta ha cabsanin insha allah waxa ugu badan wax yar mudgal maxamedow ha cabsanin balantaada tag idris qofka commentiga linki iibiyo ugu qoranta walaal blog naga saar naga blog ha gabdhaha saarayaan walaal ma ani commentiyada ma fiiriyaba qofkaas moderatorada qofkaas maaragtay naga xira blog naga saar please fiiri maxamedow waxaan rabaa inaan arriga ku sheego kow horta balantaada tag subaxii Soomaali oo turjumaaniina meesha ka shaqeeyaan oo wiilal iyo gabdhaba leh oo dad xataa la yaqaan ay ku jiraan balantaada tag waxa la isweydiinaya waxa weeyaan wixii hore ee aad soo sheegatay South Africa markaad joogtay taas ugu muhiimsan waxa kugu xiga waxa weeye laba arrimood interviewga Operation Paris oo dhan saddex qayb u kala baxaa mid waxa weeye marka lagu soo qaaday qaxootiga aad joogtay waxa sheegatay kow wixii kugu soo dhacay dabcan labo sababta aadan ugu laaban karin mataqaanaa dalkaagii soo garan waa labo qayb saddexaadna waa qaybta security oo ugu muhiimsan oo dadka lagu wacayaba waa qaybta noonooda ah weeyaan su'aalo badan waxa lagu weydiinayaa maya ah wax ma dishay wax ma sameysay Arsenal ma ku biirtay cid ma ka taqaanaa waxaas lagu weydiinaa oo maya kulligooda marka tag new fariin inbox la isoo dir maandayda waxaan rabaa insha Allah bal xaaladaada iyo waxay ku weydiiyaan inaan ogaano saan aan mataqaanaa aan wax uga ogaano laakiin tag balantaada on time ku tag waliba xilli hore sii tag dad badan waxaa jira intay tageen oo lagu yiri balanti waa la kansale iska laaba la yiri jirto marka bal waxay ku soo dhahaan maandayda nagama fogay insha Allah waa ogaanina haduu la yiraahdo naguna soo laabo markaad insha Allah balanti soo marto okay waaya insha Allah taala السلام عليكم محمد dadka kula ha qoxotiga ku imaaday walaalo waa qaxootiga oo baraan ka yimid 2019 baa nimid sideen isku heli karnaa barbara is wareysana marka soo martide hadda follow garay hadda ku soo follow garay hono waxa la dhahaa aqbal hono iyo baradiisa warantibi إن شاء الله تعالى هي والله إن شاء الله ورسم برا أنا ودن بكسوقين محمد يلا أنا ودن بكسوقين ياس أنا ولد وحاك على كيس وهاي كوسع هاي ويدي محمد warqada loo soo diray agency ku keenay kaniisadii ku keentay maxay ku dhaheen kaniisadii keentay iyaga igu yiri markii hore lawyer baan qabanaynaa kadibna ali waqtiga uu yar yahay ma qaban karo lawyer warqada goormee la soo diray warqada waxay imaatay warqadu mid khamiistii imaatay midna jimciiba shalay shalay ahayd bay imaatay okay soo follow garay waan ku soo follow garay maxamed oo aqbalo haye way insha Allah taala jazakallahu marka soo laabto man wixii akhbaar idin la socodsiin hadda waa aqbali إن شاء الله بإذن الله. فاتحة مرة إن شاء الله. فاتحة بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال بنكويتي ولا؟
markii su'aalaha lagu weydiinayo South Africa waa su'aalo lagu weydiiyo interview ma jireen oo noocee ade ma Soomaaliya wixii laga soo cararay problem ka Soomaaliya ama South Africa wax kugu dhacay ama wax adu wax ku gaadhay wax ka qorqoraan ma jirtaa ayood koobigeedii haysatay no waxba ma haysto laakiin South Africa dhaawac ay iga soo gaadho xabada igu talaba iyagu wax ay ka qoreen oo islaadahay waad iloobi kartaa ma jirtaa zaid wax badan wixii Soomaaliya oo dhan waa ilaaway okay wixii ay ku weydiiyeen hadii su'aalo lagu weydiiyo oo aad ka shikidid looyarna kulama socdo ma ogtahay laba mid waa samayn kartaa inaad tiraadid anigu waxaan ma fahadid su'aaluhu ay kugu bataan baa ku jira su'aalaad ilowda hadii aad meesha ku dhex aragtid oo aad macnaha Soomaaliya oo kale arimo lagula galay dad waxa jira wax uu haadhahay haddana hadaad imika ma tiraadid hadhow wixii statement noqonaysa ma ogtahay صح أنا مد واحد الكلمة هويدي علي عبد الله علي عبد الله عبد الله كده علي الله قبصدي هو يبقى كاميرا موقت صح صاحبه أعطي لها كل بيرايو كوسة عيننا أنت إذا ماشى صارن لكن هذا سؤاله أردت السؤال بدن أي نقطة حق وحاض ولا هذا إن ترادد لا يربى على صوت الشنيع هذا تكون بوحنين درسوا هل تلمسي أبيلك كسر وقصعنا رالنقو إدريس ما حصتا جمعي هذا الصدافة ويلكو مالا كلها ما حصتا كلها هاي وحكم رايا محكمة نيويورك ويل الإجهوري أم وح أوبريشن ماستر محصول كلها ما حصتا ويلكو لوقا وقال حكم هاي ويلكو لوقا وقال لا شاء الله ويلكو لوقا وقال حكم هاي مقبري أكون من وحكم لو بري دم الله وسبتي أحد سنتها مراو الله مركو حكم هاي maxaa talo ama maxaa cadeemo isleeyahay ku dhahay wuxuu dhahay wax oo saas oo cadeemo oo ma haysto dhahay marka wuxuu dhahay waa iska socdaa marka waxa ku dhahay hal talo ku sinaa dhahay marka taladaasna waa kulli qof walba qolka ku jira oo muraad leh u xirta ha noqoto asagana taladaasna kulli waa fiic doontaa marka wiilkii waxa ku dhahay waxa ku dhahay bes maalintii السلام عليكم وعليكم السلام عمر بدل هل مرها وصوق عبنايا وهل دق لو دق وصوق عبنايا markii wiilka waxa ku dhahay hadaadan waxba isla heenin oo cadeemo badan aad heenin oo waqti badan haysan oo loo biri ku dhiman tahay waxa ku dhahay hal mid balaqad anna waxa dhacay ku soo sheegaa ku dhahay marka waxa ku dhahay bes maalintii waxa ku dhahay 500 ilaa waxa dhahay 600 oo saliga nabiga samee ibraahimiyada sadaqana baxsa dhahay isniinta marka tagtana laba wax bas la ku dhigi doonaa dhahay ama waxa lagu dhigi doonaa sharci ahoo mise waxa lagu dhigi doonaa hal isbuuc nasuug go'aan ka soo gaarayna wiilkii sidii sameeyay isniinta dal soo dhaafay ahayd uu tagay markuu tagay lawyerkii oo dawladda ka socday ma taqaana waa la waayay markaas wuxuu leeyahay ahli suuqa ma taqaana 3 daqiiqo 5 daqiiqo lagu daro 2 daqiiqo lagu daro adi marka dambe imaan waay lawyerkii bes marka wiilkii soo wuxuu dhahay lawyerkii ma imaanin khamiista la qabtay bes waxa ku dhaw wali rajada maxaa dhahay intii la samee khamiista marka la gaaro لو wax bas lagu dhigi doonaa ama waxa ho mise loo biri nasug ama isbuuc nasug bas meeshii khamiista uu tagay shal madaraada uu tagay markaas ma taqaana hadalka la furay waqtiga dhacay bas waxa lagu dhahay hal isbuuc nasug Allah anaga ku soo jawaabeeno marka hadana wiilkii soo wacay wuxuu dhahay rajada hadda maxuma lawyerka soo horjeeday wuxuu dhahay ma taqaana wax badan oo su'aalo ma weydiinin ma taqaana asaba ku furneed ilaa wuxuu dhahay judge ka xogay ugu yar dhigo dhahay marka wuxuu dhahay ilaa iyo week soo dhahay oo ku soo jawaabay marka wiilku xogaa yar faraxsanaa marka hada shalay ilaa maanta library ilaa asugayna natiijada insha Allah marka qof walba maanta qol ku jiro ma taqaana haduu una wax hadii waraaq shaqada hadii ka xiran tahay hadii green card ka xiran tahay hadii ma taqaana dawladdu ku dhigan tahay aadan wax isla heelin lawyer wuxuu ku mataraayo waa haduu ilaahay marka insha Allah naxdii laha qof walba صلي النبي مالك بقول لح بقول هكذا هو مركا إلهي متقنا وفرج وفرج إن شاء الله أنت صدق إن شاء الله ما صدق بقولك thank you so much أيوة ما صدق بقولك هاي كوسع كوناس يلك طريقة سيرس وترفع عن وراك كسكسي ما شاء الله هاي برنسس ميجوك تامسك قدمنا ماذا كنت السلام عليكم السلام أنا waxaa aqaanaa ayaan dhaxdaase gawar la dhahay noo imo sharciya ku siinayna oo haddana ay qabteen oo caawa la wadaaye
xagee gobolkee marka ma ogida wiilkan intuu ugu tagoya asaga wadankee waay Minnesota jooga ada xagee gabadha joogta xagee ka hadlaysaa xagee joogta Yurub Okay. Assalamu alaikum. marka Yurub waay marka isku meel ma aha marka waa cabsanayaan inay ما هذا هذا يوروب عاوة كمان صبح صاقل صبح صاقل ما شاء الله أبديت أدين هايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانتينا وحنا دادك قحوتي وكو إما هذا I-94 إنا معنيه أو هذا نكان وحو الشيء أو كلا ترى أبديت إنا وشيء horta Soomaalida dhibaatada haysto waxa waaye waxnana ma akhrino wax hadii la maqan dad loo waca hadii la maqan kuwii sharci ku jooga xataa dadkoo dhan macnaheedu waxa u shidmaayo khawaaf marka soo gudbo horta bisha 3/10keeda USCIS hay'adda immigrationka update ay soo galiyeen website-kooda update-kaas waxa ku qoran sidaan u ogsoonin freeze waxaa la saaray oo waa tii la dhahay qof walba oo dadka green card u xareysan ama dadka qaxootiga ah wax oo dhan in hold la saaray waana baarayna waa tii dhahan interview ku sameynayna marka waxayna qabsadeen muddo 60 cisho amarkaas wuxuu soo dhacay January 60kii cisho maya 90 cisho qabsadeen 90kii cisho waxay ku ekeed kooda April waxa laga sugayay update inay ka keenaan macnaheedu dadkii waa ka qaadnay holdiga iyo kamaana qaadin marka 30kii bisha maxaa dhacay 30kii bisha update ay soo galiyeen waagii waa tee dadka markay joojiyeen ee dhaheen operation Barisan keenay dadkan waa ka shakinay freezana galinna markay dhaheen ma aysan cadeenin wadada dadkan uga qaadi lahayn holdiga waxyaabaha dadka macnaheedu dadka waxay galiyeen limbo oo aanan macnaheedu wada kale aanan lahayn واتي حتى جرين كارد صبح واحد. مركز صدق كبشة قف كأخري statement تيجي صوت لجن وحكوا قرن update on USCIS strengthen screening and vetting. هذا قلي كرت حتى وقلي كرت هذا ويب سايت كه وقرار بير وايه أو لكن هوس ده أسي سعتيد وحن ربع قيبت أكو قرن تحي internal review process وحكوا قرن USCIS established an internal process for lifting holds on individual or group cases. waxay macnaheedu sameeyeen process macnaheedu wado ama qaab ay lifting holding ay ku lift gareynayaan dadka caseskooda ay xayir yihiin 39ka wadan maxaa waay marka wadadaas requiring comprehensive review by multiple offices process adag oo ah baaritaan ah oo review in qofka lagu sameeyo dadka ka soo gudbana laga qaadi doono liftiga waxay ku qoran tahay website-ka immigrationka uma baahnid inaad cid weydiisid uma baahnid inaad luqada tagishid haddaad luqada aqoonin wixii intaad koobi gareysatid turjumo xataa marka maxaa sii raacsan marka holds have been lifted for aliens vetted through operation Paris dadkii soo maray oo la soo marsiiyay operation Pariska waxaa laga qaaday lagana qaadi doonaa holdiga ku dhagnaa maxaa marka taas cadeynaysaa waa good news waa wax fiican haddaa interviewgan soo martid waxay u badan tahay in liftiga laga qaado green cardkaagana gurigaaga uu kugu soo dhaco dad badanna way ku dhacday I'm not sure ani hadda tan macnihii ma aqaan Soomaalida dhanka moor qabi laakiin dadkii operation Pariska soo maray dib haddii loo fiiriyo dad badan ayuu green cardkooda u soo dhacay qaar 2 sano ka xiriirnaa qaar 3 sano ka xiriirnaa qaar 1 sano ka xiriirnaa xoogaa way u soo wada dhaceen marka operation Paris interviewga horta walaalow ma aadaa iyo ma aadin iyo qofkii tala ka rabo horta ku qasbantay inaa aadid qof walba wuxuu soo sheegtay asaga og laakiin se cabsida ah oo adigoo jareynaya soo galaysid aad dhehaysid macnaheedu walaalow aan maxaa lagu sameeyaa war adinka iyo dadkan walaalaheena oo darbi kaboodka ah isku mid ma tihin marnaba horta u baqin in dhibaato iyo wax lagu geysto waxaana macquul ah inay khayr kugu jirto marka hadalkii wax ku soo gaabina wax badan hadlay laakiin operation Pariska wuxuu ka mid yahay USCIS waxay tiri waxa ogaanay dad badan oo green cardka iyo citizenship ku qaatay si khaldan ayaan soo ogaanay markaan baarnay macnaheedu hadalkay ku qurxsanayaan waxay dhaheen waxaan bedelnay waxyaabo badan aan soo jeedinaa soo bedelnay employee-ka la soo dhaafay waxa ka mid ah farihii iyo security-ga la soo gaabiyay qofka farihiisa awal dhowr sano ku dhici jiray iyo sawirka hadda taan in fara iyo sawir iyo waxay soo kordhiyeen
operation bariskani meesha kusoo xuseen waxaana sii raacsan cid walba oo la marsiiyo operation bariska haddii macnihii la vetted gareeyay oo successful ay noqdaan obviously way u badan tahay 100% inaad successful noqotid because su'aalaha dhan lagu weydiinayo wax review ah waaye wax hadda kabacdi ladii laga qoraayo ma ahan saas ma dhaceen haa iyo maya u badan yihiin su'aalaadka marka waxaa sanadka lasoo gaabiyey siduu hadda yarka walaalkeena uu sheegayay su'aalaha oo noodaana usii dambeyso ah waxaas ma samaysay iyo dambi ma gashay saan mu dhacday cirka ma kasoo booday aa u badan marka waxaas ay soo dhammaato oo ay system ku geliyaan inaa kasoo baxday automatically waxaa lagaa lift gareeyey holdingii dadka Soomaalida general login u wada dhignaa ayaa adiga laga qaaday marka waan uga baxay intaas qofkii raba tixraacna wuxuu raaci karaa page-ka USCIS ku geli karaa update-ka 30 bisha saddexaad insha Allah taala وما سنتها بقول كيف بقول بل قبلها سنة هلين أينا نسينه ما إدريس واكو سلامة هذه يا أصحابتك كله سلام نو أيانتا ندي ما أركن أيانتا ما غنيت سكاجل كمان غير ولا لك دوا صحني ما البا صلح يروي هذا واي ورركو أنا قدام باورر سنة أدوك قدام باورر سكلي قابها هاديات والله الحمد لله وهذا اللي يرى ولي ما سيدي أبوق سنتي إنكم ما دكتان مياه سكاشن كما سيدي أبوق قيسان روح أنا يوم بيودع عيسى يسكسوجا وحول بقى أنا بوافيس جري أنت هذا خلاص أفرت سنة تراب جوجا نبكي وحلي ما تقارن هذا وحبك قبان كريم باليدي محل ده والله فيس جري يعني كعنت هذا هي كعنت هذا جوين كريم والله دون كذا ما بقشة نبكي هذا جوين كريم ده كذا ما كريم هذا والله كذا خلاص وحي كوجش كوجع وحي له كوقرة إن شاء الله وحي ددالنا waxa bedeli karnana malaha waa iska sugeynaa marka insha Allah wixii Ilaahay inoo qoray laakiin cabsida hal iska daayo cabsida iyada wax badan ka kharibayso wax badan ka khariba cabsida cabsanina tawakkalu ala Allah wax kasto oo markaas imaadana insha Allah way hagaagayaan arinta oo abiilkana aniga waxa ku ogaa 550 in 530 ku ogaa qofku markuu abiil qaadanayo aroon 50 meeshay ka timiday لو يرضي على قاري جاج قراني أمرنا معناه دانتooda ka dhaxarkayaan mi aniga lawyer-ka lacagayga ma qaadan wuxuu dhahay lacagtii hore aan ka qaatay baa ka qaadanaya inta kugu dhiman maxay heeto laakiin dawladda lacagta ay qaadanayso 550 waay misaas dhehana u maleena صح 560 ها waa 5 maraya update karaadii ما يدبك جرا ما 5,000 oo dawladda loo diray ma aha looyaradiiba qaar iimaan la abaa jira moogta abo may 5,000 dawladda toos loogu shubaya ma arrintaas waxaan soo weydiinayaa ama guri baa loo dhisayaa dawladda marka 5,000 arrintaas waxaan soo weydiinayaa dawladda waxaan 530 iyada aba wax lagu daray iyo waxba la sheegay looyarada idris waxa weyn looyarada imka tusalaan looyar baa hadda isla socotay Soomaa marka meesha aad tagtid ee lagu siiyo negative G28 ki adiga isaga inii dhaxaysay meeshaas ku xirmay sax takiiskaas isku xirmay macnaha asylum-kaagii lacagtii aad ku heshiiseen 8,000 9,000 wixii uu ka qaatay negative marka saa u qaadatid G28 kaas isku dhamaaday so dhalinyarada waxay garan laayihiin G28 kan already markaas iskugu dambeysay tafasaxu fil majaalis fasaxay sallallahu lakum adiguna waxa weeyaan calaf khayr qabaraasay isaguna calaf khayr qabaha raasay ahaan lahayd moogta isagii baa wuxuu ku leeyahay hadaa rabtid ampil inaan ku xareeyo fiiri isagu waa lawyer wuxuu yaqaanaa in G28 kaagii uu ka xirmay marka wuxuu ku dhahayaa hadaad rabtid inaan ku xareeyo ampil waa inaad bixisaa lacag 5,000 macnaheedu waxa weeyaan waa lawyer cusub qabsa hadda weeyaan G28 cusub saxiix sax then dhalinyaradii iyagoo taa u fiirsan baa wuxuu la soo boodayaa 7,000 buu i weydiiyey 6,000 buu i weydiiyey 5,000 buu i weydiiyey ana waxaan qabaa war qofka maalinta markaad meesha albaabka saa uga gashid adiga charge-ku hadduu ku dhaho
كلها ونبر أد أكتهاي هورتك هتوك ده تفسحوا على خير خبيز كراس الله يركلا جبل ملاك الراس نينكو نيكرا دمعته looyaradu isku mid maaha looyaro waxaa jira dadka dhaha lacagta dii looyar waxaa iska bixisaa dowladda bes suldaano adiga ma darbi kabooda taa darbi subood baan ahaa okay sidee ku tiri in looyarka markii heshiiskiina dhamaado ama yacni hooshii aad ku soo lusgareedo jaadku kugu soo celiyo 5,000 oo abiilka lagu xareynaya inaad tirada looyarka la siinaya sidee ku tiri aan ku sheega saaxiib 5,000 meel lacagta dawladda loo diro waa lacag qoran oo macnaha aad ku xareynsid abiilkaaga 5,000 aan horta ma arkin 5,000 ee uu ku sheegay ana ku faansi saaxiib starbuy ma masha hadda waa ku maqlaaya hadday socotay ku soo dirnaa maya waa sax maya hadday socoto waa sax waxaan ka hadlayaa hadalka fan starbuy waxaan ku dhahay anigii soo diraa fiiriye ha G28 agri starbuy saaxiib adiyo looyarka waxa inee dhaxeeyo wax la dhaho so ninkeyga naagtu markay iskuursanayso meher iskuma xidhaan adiyo looyarkan waxa isku keen xidhan wax la dhaho G28 hatta hadduu adeerka ama lawyer qaraabatiin oo USC ku dhaho Starboy information kiisa rabaa lama siinay wax lagu dhahayaa G28 ka 80 numberka ku qoran sheeg then ma sheegi karo marka waxa la dhahayaa qof G28 ka haysta oo macnaha adi iyo isaga warqadii inii dhaxaysay ah ee u saxiixday markaas ayaa wax la dhahaa information kiisa lagu siinay ka soo gudub taas waxay dhamaataa laba mar haddaad xabsi gashid G28 kaas ma shaqayso iyo hadii negative lagu siino way isku dhamaatay macnaheedu way kala dhamaatay G28 kaasi waa la isfuray kan saddexdii talaaqad dhamaatay saasan guddo Soomaaliland ku fahmeynaa then waxa noqonaysa inaad u saxiixdid oo G28 cusub aad saxiixdid marka saxiixaysid qasab lacag buu ku weydiinayaa أنا واحد كبير لقول ده هاي هدا ربتدي إن اللوير كوسي أهده تطبقون وأنا يان كوجون قنايا أو ديجو صحيح مركز أساس صاحب وحاسد على مرة تيجي نقد في خوف كلاسيو لوير كوات كلا دماتين G28 أصب رأسه هتود نكن أتكون قناع ودي لا مجال اللوير واحد شراء ما عرفتي واحد فهمسن لعقته اللي ما شاكته قف دليل أنا ولا شخص أنا يا مستقبل العقد ولا سمين دونا لكن مهمته واللوير ككيس كلا كان ما أنت أتكو خسرت إن تدنا إسا كسي تبسكتيد واحد عامة أضو اللوير كلا بختي نصيب كا قبصة اللوير هذا المجال هذا اللوير خطر أجوج موت مركز على أساس لكن أنا مش تكون هذا عصب تأودر بالإدرس أنا في ريال waayahay waa baabaarayna arrintaas waana noo soo diray ninkaas horta ay u kaadiyaan horta soomaalida meel walbay joogta dhibaata haysato soomaalidii markii ay turkiga yimaadeen dhibaatooyin badan bay la kulmeen xagga turjubaanada marka haddana waxaa moodaa maraykankii inay dhibaatadii soo gaartay marka arrintan 5,000 la sheegayo bal arrintan guddaha loo sameeyo aan soo ogaano si wax jiraan walaal aduu darbi kibood ma tihid haddii iskuuka aadanta annaga nagu tirtirsan anaa hayo xogtaas fiiri hamara raba wax yar inaan idin sheego ma fahamti haye ka hadal kiiska marka uu qaato rejecti uu abiilka aadayo waxaa jiro lawyerka dowladda iyo judge-ka koox u dhaxaysa jirto oo kiiska qiimeynaysa inuu kiiskan u qalmo in mar kale maxkamad loo diro markaan ka baxo soo war adiga naga musliyo waxaan dhageysanaynaay waxaan kala qaadayna ninka caawa marka anigu hadlo un baad soo qabsanaysaa qolka wax horta caawa iska dawareegna marka okay saaxiib mega maxaan ka dhageysanaa abo warbixin saxana nama siinaysid dad baa warbixin siinaya ninka UK boog qoranta dhageysanayay aamus qolka تهنا هذا القول كامس عاود وح معنا دراء تركي محن كيرا مريكان جبناي مدة كلا دليرة هذا السوق شيء إنجليش كوي يقانن وين كو هاللان سو مرتا ودك السوق قف جاهل ما سو تهريب نيو ترتيب الدجي حالة الدجي ورتني كاسا كان لو بحين بقادن إن هذا الدود اسكت جوجي عاود أنا شد خطتك كان هذه وحلا باررتها إن هذا بس هذا عامس بارا يا عامس أنت سكاجة يعني عامس ملي كتير ما أنا كل في قبحي مكان عامس هذا فير نيكا عيتما بالكي دريسو ما لا عيتنا مرك واي هي وحير له هذا أنا وحير له هذا بليز صدق حقوقك بشوف مصاحب بلا هاكو دغيستو سق
aan ka baxo waxay raadaya aad waxay suga fiiri wax macnaa ma sameynaysa inaan isku riixno ninkan king hadalkaas watay hada meesto UK boyna bal way soo koob ninkan ha kugu xigsado marka inaan kala faa'iideysana muhiim ah lacagta 5,000 nina noo keenay idriso waxay tahay waa been iyo inta ka dhacday anaga dhibkan صاحب تربيو كدع هذا ما يستوعب كدع قول هذا قصعه هاي قصعه ما هو حاول أرنتها أني كان يعني شنو تكون وهذا ستار كده كجذب قدر كاس أرنتها والله يا إنت أصحاب إنه أنا يدرو يقدر يسوون برا يدرسوا أنا كل ساعة كان مايو حنا أنا يقدر يجينا قولك كاذل ها ماشي تركي جماعة وأنتي دكاترة تتكلم بقولك كنت وكل لقصوا ضلعناي ونمك ترجمانك يستمسنين dadkan darbi kaboodka ah masaakiinta ah dadka turjumaanku ah warnimo ilaahay ka baqa please ilaahay ka baqa way walaalo marka ka taaya no markii arintan waxay u baahan tahay in la baaro lacagta way qaadanaya waa $550 waa dawladda Mareykanka u diraysa way waxaan rabaa inaan focus ka saarno waxaan hadii waxaas muhiim ah taas waxa muhiim waxa weeye technicality bal UK boy warbixinta ku socdo walaal raaliya UK boy nee waxa jirta kiiska marka uu rejectiga qaato waxa jirto abiil al xareena abiilka intuusan judge kale u gudbin waxa uu maraa koox eegana dawladda kamid ah oo looyarada kamid ah kuwaas waxay fiirinayaan kiiskan ma u qalmaa in dib loo furo oo dib judge loo geeyo kuwaas waa kuwa marka lacagta qaadanayo 5,000 qayb ay ku leeyihiin qaybna lawyerka iska leh lawyerka ma wada la 5,000 waa fahnay ma sha Allah maxaa waay marka ku socdo idriso ma fahtay UK soo ku sheegay anaga ma fahmo ha waa sidaas weeyaan ha say ku socdo lacagta guud baa 5,000 laakiin qolyaha kala qaybsanay lacagta waa wax macquul ah weeyaan gabadha daa uu celiyo kiiska marka uu rejectiga qaato isla markiiba maxkamad kale aadi ma wuxuu maraa koox kale oo iyagana xaakimiin ah kiiskan ay fiirinayaan oo judge-kan uu soo yiri reject waaye ma u qalmaa in mar kale dib loo furo oo waxa la dhaho abiil markaad xareeso approve lagu siinaa approve waxa ku siinaayo waa iyaga kiiskan uu u qalmaa in dib loo furo ama si fiican looma dhageysan kiiskan waagii hore waa in judge-kan loo gudbiyaa kuwaas waxay qaataan lacagtaas marka ay lawyerku ku weydiinayo 5,000 qayb ay ku leeyihiin 3,000 inay ku leeyihiin ama lawyerkuna 2,000 leeyahay aad waa wax cusub hadda la keenay waaye idriso waxaan ka hadlaynaa waxa cusub waliga jirta kiis walba abiil waliga see ku jirta anaba abiil qaato abiil ku jira 2 sano iyo waxa laygana mana qaadan lacagta ka hadlayside aga meeqa laga qaaday 5,500 laga qaatay aniga هذا إذا اللي شيء ونابه صباح كل شيء هذا إذا اللي شيء شنبقل يكون أمين شنبقل أعوذ بالله شنبقل يكون نص شنكون لبصنا كور ما قالت مساعدة قالت 2024 عن قالت يعني جنة بس أنا حتى كان لنا وحي واقف بدل هذا في هذا بيري ويلك أنا وحده واحد ولك الزوج جرت هذا أنا واحد كان رجع نظام كلام مرة يا ما يكيس كان هاي ما immigration isku jawaabina fiiriya saaxiib isku jawaabna waa fal xun qabla yaabana sida immigration waxa weeyaan fiiriya starboyo arrinkani macnaha dawladda iyada caadiyan ama hore ama gadaal xataa shalay toole ninkii jimciye qaatay negative 550 buu dawladda loo diraya dawlad ahaan lacagta akoonka ku dhacaysa dawladda weeyaan taasi lacagtan kale 5,000 hal qof iyo laba qof lama dhina dad waxay jira 7,000 lagu dhahay dad waxay jira mataqaanaa lawyerku wuxuu weydiiyo Soomaa UK bayo in rakaas iyo adiga lawyerka inay dhaxeeya hadaba lawyerada kiisaska ay hayaan dadku isku lacag ma bixin dad 5,000 baxshay dad 2,000 baxshay dad 10,000 baxshay yes waa lawyerku in yarada way dhageysta anigu asayli baaha kadibna reject baa leysiyay lacagtii rejectiga markii la siiyay aniga lawyerka lacagtiisii hore anoo qayb bixiyay qaybna igu harsan tahay aniga reject la siiyay kadibna wuxuu yiri abiil aan qabsanayna okay aan abiilkii qabsan wuxuu yiri lacagta dawladda iska bixi asaga lacag igama qaadan lacag kale iguma soo charge gareynin bas sidii aan ku saaseenay intaas ay ahayd ya nina adiga lawyer okay nimay adiga wala lawyer sultan aan kugu xigsado okay waxay la siiyay ableader raali hadaya
ku soco Idris lacagahan fiiga la sheegayo way kala go'an yihiin laakiin waxbaa ka jira hadda tusaale oo kale wuxuu leeyahay appeal board oo kale immigration appeal boardka BIA da waxay qaadataa 130 DHS oo kale waxay qaadanaysaa 130 kale Federal Circuit Court wuxuu qaadanaya 230 cancellation removal for non-permanent residents 1640 suspension of deportation $710 adjustment status يعني waxyaalo fiida marka 5,000 ka badan ay gaaraysaa lacagta hadda fiiriso waxay ka hadlayaan waxaan ka hadlaynaa intaas waayba wax xaqiiqada ma fiiri diriso waxaan ka hadlayno annaga meesha markii wadankan annaga aan soo galaynay team baa la isku socday waana la iska warqabay kullee wadan la soo wada maraya dhalinyaro badan waa la isbaranaya dadku waa isbaranayaan lambaraa la iska qaadanaya warbixinta waa la iska wada hayaa wadanka ayuu hore la isku aqoon baa wadada la isku soo baranaya markii safarkii la soo wada galo qof walba marxaladiisa iyo xaaladiisa de group WhatsApp yaan leenahay oo ku wada hadalnaa habeen walba warbixintii iyo wixii si wax u jiraan iyo qofkii wax ku dhaceen buu imaanaa meeshuu imaanaya warbixintuu ka sheegaya marka waxaan ka hadlayna ma ahan waxaan anaga soo dhisnay iyo wax khiyaaliya ma ahan waxaan ka hadlayna waa wax xaqiiqa oo jira waa wax hadda isbedelay haddii hore u jireen haddii jiraan wax isbedel ku yimid waa hadirtaan jira marka warka markaan sheega ma ahan qof kale la duro ama wax hore loo fiirsaday wixii xaqiiqada la raadshaa dad horumarsanaatiin media la socda hadda saas uu Idris ku baaray isla markii waxba soo bandhigay wixii way ka sii badanaysaa waliba waxba ku sii darsoomaya wayna loogu talagalaba in waxaan mar ka dambaysa la sii adkeeyo ay nimankan iyo dadkan qeyl inay waayaan way ugu talagaleen marka wax beenaan ma sheegayno falgaadana hala joojiyo dad waaweynaan nahay meesha xogan ku kala qaadayna dadkan masaasad afka kula jira beenta وايو كده adiga baa qaytamay aflagaada la joojiyo alada adiga baa qaytamay ستار بوي ها ay salaam alaykum نيما أنا كل ما هلا هي كسمة كسمة ستار بوي هل مرجاني السيبا وقتي هاي سراي هل مرجاني السيبا إنها الله وقتي راح يستاي هاي نيو waxaa u baahanahay inaa oo qof oo lawyer meeshan soo fadhiisid oo aa weydiis arrimaha oo appealka sida loo qaato iyo information-kooda because hadda waxaa noqotay diidmada way badatay oo qofka in sharci loo diido way badan tahay so dadka sharci loo diiday badanaa waxay sameynayaan in appeal ay dib u qaataan so appealkaas maxkamadda loo geeyna appealkaas ay aadayso waxaan rabnaa inaan ogaano marka almost like 800 qof ama 1,000 qof oo diidmo la siiyay aadi karta maxaa la appealka so maxkamadda appealka ma isdhehaysa miyaa dadka dhan oo Soomaalida oo kaliya way appeal ay u qaadanayaan oo wadamada kale ay soo qaadinaynin su'aashaas jawaab baahanahay haddii community-ga oo appealka qaabilsan ee dib u fiiriyaan kiisaska Soomaalida ma laga yaabaa inay dhahaan dadkan si xaq daraa loogu soo diiday ama arrimo kala jiro ma la isdhihi karaa arrimahaas oo kalena ogaana rabnaa su'aasha labaad waxaana waaye midda labaad aan rabo inaan ogaado waxaa waaye lacagta looyarada hadda waxaa bilowday looyarka inuu ku dhaho lacagta oo heshiiska ahaa inaad soo dhamaystirtida loo baahan yahay so looyarka jaadka ma ka imaaday in lacagta looyarka loo dhameeyo mise looyarka asagaa shakhsiyan u codsanaya in lacagta loo dhameeyo because aniga hearingka waa maray waxaana maqlaaye jaajka oo dhahayo waxaan u baahannahay request payment oo jaajka request garas waxaa codsanaa u dhahay payment confirmation aan rabaa u dhahay that means waxaa u fahmay in jaajku uu rabo inuu ogaado in qofkan oo asyliga ah in uu payment complete uu sameeyey lawyerkiisa uu payment complete uu sameeyey uu madax banaan yahay haddii loo diido in uu macnaha uu wadanka laga celin karo hadduu paymentkiisa uu socdo weli waxaa isleeyahay in uu customerka oo lawyerka inuu ku ciyaarayo inay noqon karto jaajka I don't know but laakiin codsigiis waa maqlaaya arrintaas kasma su'aashaas jaajka lahaa paymentiga weydiinaya soo maa ha $102 ee looyaradu dadka ay ku leeyihiin ha bixinina dadka qaar baa bixinaya ma bixisa $102 aniga lawyerkayga wax oo lacag ziyaada weydiiyay mara aniga marka imaaday contractiga ma imika lacag bilaabantay baa jirto oo Trump uu keenay $102 kala ah oo labadaba looyarada qaar waxa jira looyaradu markii ugu horeysay waxay dhaheen sida saxda ah dadka qaar baa loo soo diray warqado oo USCG u soo direen ku dhaheen $100 soo bixi
qaarna looma soo dirin moogta waxaa jira dhowr wiil oo magaalada jooga Minneapolis looyaradooda ayaa waxa ku dhaheen lacagta ma bixina waxa lagu dhahay maye waxaad inaga iniliima soo dirin dadka qaar baa bixinaya qaarna ma bixinayaan markii master hearingka aadeena hadda waa inta imka master hearingku socdo match dhexdeeda wiilashii waxa lagu dhahay dhowr wiil waxa lagu dhahay lacag waa inaad ay keentaa lagu dhahay cadeyn ah body paski aad ku timid Latin America hadda $102 ee dawladda receipt markaad qortid aad bixinaysid receipt baa ku soo dhacaya iyo maxay iyo wax kale la weydiiyay passportkaaga then $102 hadaadan bixin charge-ku uu ku weydiinaya saas waaye charge-ku ku weydiinaya negative wali weeyaan hadii ay individual tahay negative ku siin karaa adoo lawyerku uu ku dhahay ma bixinaysid lawyerada iyagoo dad ku dhahan looma baahno oo dadka qaar baa warqadaha loo soo diray baa charge hadana dadka weydiinaya $102 inay tahay baan u maleynaya arrinkaas واي تن لوير كسر حكم قلين وافهمي لكن أنا ويلي واحد إيميل يسود عملها واحد إنفورميشن كتسوق عملها لكن مركو وجاتك وهلا أو حمق لاي وحوبها هنا هاي ان بيمنت إنفورميشن أو مستنى الرباوده so أنا مركو حوفهم إن ودونا يو بريها نحاس عطو إن قفك حتى حلقة أو individual كسمك اللي قاريدو ده هاي جات لوير كوسواع حكون هذا العقد في السنين هذا ان كيس كا ودروب قرينا so kasmow waxaan lawyerka iyo adiga wixii inaga dhaxeeya waa ganacsi isaga ninkan charge-ka ina free uu kugu shaqeynayo lawyerkani ina free lawyer aad haysatid iyo ina lawyer lacag aad haysatid access uma laha laakiin lacagta uu weydiiyay waa lacagtii $102 hadayna kuu soo dhicin oo hearingka soo martay individualku ku dhiman yahay linki baa jira laga bixiyo iska bixi adoo rasiidkaaga iska haysta meesha aad maalinta hadii lagu weydiiyo tus waayo looyaradii dhalinyaro badan waxa jirta looyaradoodu ay ku dhaheen warxba idniima soo dhicin markii meesha aadeyna lagu dhahay lacagtii maad bixiseen cadeenkeena lagu dhahay kadib markii looyar ku dhahan maxaa dhacayna looyarku wuxuu ku dhahay ma aragtay wax information man arkin ana hata kula hadlaya looyarkayga wacay waxaan ku dhahay neon lacag la isku soo diraya ma bixiyaa wax information ma aysan wuxuu ugu dhahay wali wax adi dhinacaaga waraaq ah dadka waraaqa oo soo dhacay meena soo dhicin okay aan dhahay bes waxaan dhahay waxba la sii doodin ana linkiga aaday ana lacagta iska bixiyay receiptka soo dejistay receiptka hata ana iska haysta hadii bari toole la weydiiyo isaga anti buuq iyo qaylo iyo sawax la wada gali lahaa way soo dhacday ma soo dhicin waraaqad waan helnay maan helin inta la dhihi lahaaba already waa iska sii bixi saas samee iska sii bixi $102 100 meela weeyaan iyo $102 iska bixiya qofka aanan bixin warqad u iman wuu ku qasban yahay inuu bixiyo waa maasanta aad oo maasanta taas waa fahmay mid سيهمية ha sanad ka badan qofku xarisay waa ku qasban yahay حتى الرجال هذا هيستو مسو everybody asylum aba qof kasto asylum uu xarisay weeyaan mid kale raba inaan fahmo waxaa Somali families waxaa ka codsanaa inuu qof lawyer meesha noo soo fariisisid oo noo weydiisid macnaha haddii keesaskeena asylumka diidma nala siiyo oo abiil ah xareysano abiilkaas maxaa anaga faa'iido noogu jirtaa maxaase rajaynaynaa maxayse ka dhihi karaan diidmadan faraha badan oo dadkan la siiyey oo abiil ay qaateen maxaa imaan kara sidee ayay ku handalgareyn people oo diidma la siiyey see ku qaabil karaan maxkamadda abiilka waan raadinayaa dhowr qof oo looyaraan wacaya insha allah haddii naga aqbalaan waa keenina insha allah tamam waa mahadsan tahay aad oo mahadsantihiin idrisow haddii macquul tahay hal habeen waxaan jeclaan lahaa qof ku takhasusa arrimahan ama qareen ah special haddaan noo heli karto inaad habeen qolka noo keento waa fiicnaan lahayd haddii la awoodo waa ood keeni karto ها نيوان horta su'aalaha waxay ku dhahayaan inta badan su'aalaha khaaska ma jawaabi karo su'aalaha guud aan ka jawaabi karnaa marka waa la hadlayaa waa la xiriiraya insha Allah waan isku daynaa inaan keeno anaga su'aalaha